السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا فاتوش فاميلي سودا وهذا ولاش فاتوش channel كداول سينا وفاتوش فاميلي يس واسك هذا ما أنت أبديت بان كولا باكج كي بايدن حكوا مريا لبدي سي باكج إن استمرس تك ميا لو طري وح إلا هذا لو طري ميا شرا وان إسلا قابع دقيقة مركز سودا وهذا سبسكرايب صار channel كذا نقول عصبت هذه أهرنا ولا شوكتو سبسكرايب هنا سبسكرايب صار محد سويسا وحياة بدن بن كوميونتي اللي وذاك ما شاء الله وأنا شغلها إن نيوزيلندا إيه أحوالها وطنك إن كده بقى إن شاء الله. السلام عليكم كسر دوادة فاتوش فاميلي أونلاين ستور هالكاس أو عاد كهلي كرتي داهي عاد مسكح دادا يمان كاج عاد كهليسي waxaan hayaa daahayo kala duwan leh sidoo kale aad isticmaali kartid winterka iyo samarkaba daahiyadaano aad iyo aad looga soo shaqeeyay kala qurux badan la isku dardaray la isku match gareeyay waxaad ka helaysaa store-keena online-ka ah waxaad sameynaysaa taleefanka ayaad soo wacaysaa ama snapchat-ka ayaad igala hadlaysaa meeshaas oo order-kaaga aad ka samaysan kartid haddii aad degan tahay Twin Cities-ka waxaan leeyahay free delivery Minnesota nawaaxigeeda dhowdhow haddii aad 50 state meel kamid ah aad degan tahana sidoo kale waxaan sameeyaa shipping ayaan sameeyaa daahaga ayaad dooqi aad jecleed ayaad Fatush family ka gadan kartaa halkaas oo gurigaaga kuugu imaan karo 2 to 3 days meel kasto oo aad joogtiin hamoogaan Fatush family online store waxaan soo wadnaa waxyaabo qurux badan la soco oo hadaba استيتشيت بدن كدب waxaa soo baxaysa horta package-ka waxyaabo badan bay ku tatarayaan waxyaabo anaka wali ay sheegaynin yani oo markii hadhow la soo bandhigo ay ku dari doonaan laakiin waxa waaye waxa ay hadda sheegeen oo yaa nuxdoodu laga soo sheegay in Tuesday labada package ba loo codeynaa Tuesday waxa waa Monday hadii wax isbedelaya Monday حتى Tuesday waa ka sii dibdhigaan laakiin hadda waxay sheegeen White House in ay labada package ba u codeyn doonaan Tuesday marka weekend waxay ahaanaysaa big news waxyaabaha la isku haystay oo aad iyo aad ka muranka u dhaliyana waxa kamid ah immigration-ka because dimuqraadiga immigration-ka aad bay ugu weyn tahay waa dadka oo aan sharciyada haysan oo la rabo sharciyada in loo yeelo waxaa ku dhagay markii hore sanad parliamentary-ga oo tiri ma ku jiraayo mana geli karo marka ayakana waxay raadinayaan way ay maxaa la dhihi jiray ay u sameeyaan oo ay ugu daraan immigration-ka because immigration-ka waa very important dad badan buu anfacaya dad badan baa wadankan jooga shaqeeya wadanka wax u tar dhaqaale soo geliya marka immigration-kaas koow ka ah waxa kale oo ka ah stimulus check oo la dhahayo dadkooda qaarkood ay dhahayn force stimulus check waa in lagu daraa dadka adultiga maadaama children-kii lacag la siinayo oo children-kii mar hore ay ka take care garayseen dadka waaweyn oo adultiga waa in lacag lagu daraa adultigii baa la sii kala saaray oo waxa socota saxiixii 10 milyan ayuu hid gareyn rabaa maxaa la yiri 3 milyan oo hid gareyn rabaa sidoo kale waxa socota ayakana kuwa kale oo u hadlaya dadka senior-ka waaweyn oo dhahayaan maadaama dadka qaata social security-ga income-koodu aad u yar yahay aysan dhaqaale kala haysan waa in lagu daraa 1400 oo check ah oo ay lacagtooda ku darsadaan ku caawiyaan marka darfaha la isku dhagiyo ma fahmaysaa soo qof kasta waxa uu rabaa markii hore madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay wuxuu yiri qof kasta wax uu rabo lama heli karo because يعني قف كست وحبا كوين قار immigration كا كوين قار stimulus check in dadka la siiya كوين قار in dadka senior-ka la caawiyo كوين horta ilmaha meel la soo saaray waa la isla ogyahay oo ilmaha meel baa yani because reality-ga qofka caadiga xataa markuu fiirinayo hadda qof dhahi kara I don't think ma jiro ilmo lacag hala siiyo because already ilmaha maanta bay qaadanayaan oo qof kasta ala cunug baa lacag ugu siiya waxa laga hadlayaa dadka adultiga dadka weyn oo shaqeeya ama ilmaha lahaado ama ilmo yuusal ahaan marka taasna kulay last change-ga bis baa lagu arki karaa marka ugu dambeeyo oo package-ka hadda waa la qoray qoritaankiisu wuu dhamaaday
waxyaabo aysan weli soo bandhigin baa ku jira waxyaabo la iskugu tanaasuli doona baa ku jira lacagta hadda kuma jirto lacagta sheekadeeda waa la soo gabangabeeyay 1.75 waaye laakiin wixii lagu dari lahaa waxbay ku carcariirinayaan ma fahamta jaqdhaga caafimaadkii la isku haystaa asagna sidoo kale waxaa la sheegay dadka waaweynka in ay fiirinayaan in loogu daro 800 oo kaar loogu shubayo oo qofku caafimaadka uu iskaga caawinayo ama daawaha ku gato ama ilkaha ku hagaagsado ama wax ku samaysto marka way badan yihiin laakiin qof kasta wax buu rabaa qof kasta wax buu doonayaa marka I think we isku tanaasuli doonaan Monday ma ahana Tuesday baa loo codayn doonaa Tuesday sida ay sheegeen haddii wax isbedelaan waa kaasa markaas ayaa la garan doonaa laakiin still haddii xataa sidiis uu yahay hadda ku waxayaan aniga waxaan believe gareysanahay in dadka weli faa'iido badan ay ugu jirto because waxa ku jira program si fiican looma kala dhigdhigo laakiin housing-ka ku saabsan affordable housing-kan ka arkay kulay grantiya lagu darayaa oo dadka guryaha markay gadanayaan ee laga caawinayo asagna si fiican baa u soo aqrinaya marka ay soo dhameeyaan laakiin housing uu ku jira child tax credit uu ku jira waxa kale oo ku child care-ka ku jira very important because dadka waalidka labada waalid qaarkood qof uu u fadhiyo inuu san shaqeyn karin because child care-ka iska bixi la yiri a big win waa horta taas waa very biggest win waa big win because child care-ka dhan haday center ahaan lahayd waalidka waxay u tahay big win yani aad u guuleysteen because centerska de lacag la siinayo Soomaaliya oo ilmaha lacagta laga bixiyo ay ka qaadanayaan labada waalid markay shaqeeyaan oo kale 7% waxa leeyahay yaan laga qaadin income-kooda awal hore 20 something baa laga qaaday boqolkiiba 20 iyo something waa 23 ma ahayd meelahaas baa laga qaaday waa lacag badan soo laba waalid markay isla shaqeeyaan waxa la dhihi jiray laakiin hadda waxa la 300 oo kun iyo wixii ka yar 300 oo kun qofkii sameeya iyo wixii ka yar 7% waa 7% income-kiisa ka badan lagama qaadi karo fahmaysaa 7 ka badan lagama qaadi karo marka that's a big win waa fiican tahay waalidiinta way caawinaysaa waxaana aaminsanahay waalidiin badan oo shaqada ay ka jooga oo shaqaysan karin ay hadda shaqaysan karaan wadaga inuu shaqayn karo islaantii uu shaqayn karo child care-kiina ay iska bixin karaan waa big win way fiican tahay waa wax fiican sidoo kale waxa ku jira dadkan home care-rada iyo dadka waaweynka senior-ka dadka taa ay kan lacag baa ugu jirta oo ay kan qayb baa ka soo aadaysa marka hatta aniga waxaan believe gareysanahay hatta stimulus check lagu darinin very good waa wax fiican oo dadka caawinaya kaliya waxa aan jeclaan lahaa inay ku daraan dadka unemployment-ga qaatay amal oo kale inay dhac ka futiyaan sanadkan maadaama dib dambe unemployment oo federaalka imaanayso bandamiga loo qaadanayo cudur ilaahay nooma keeno nagumana soo celiyo inay dadka unemployment-ga qaataan wuxuu sameeyaan because unemployment-ga qofka markuu tax return xareysanayo income-ka ka dilaysa oo unemployment-ga waxa la the eyes of IRS is not an income ma ahan oo yani earn income ka dhigi kartid yani inaad shaqaysid oo shaqo kugu jirta waay si aad ku heshid earn income-ka taxigiisa aad ku heshid marka soo package-ka Tuesday insha Allah markaas baan soo faahfaahin doonaa wixii haray wixii lagu soo daray because saacad ugu dambaysa xataa waxa isbedeli kara inta laba qof isqabataa leey hala tanaasulo ha lagu daro waxaas aan dhahay marka that's why aan loo dhihi karin final waay sidoo kale waxay sheegeen inuu another package bilaabanayo oo mid kale uu bilaabanayo waliba uu ku soo beegbayo sanadka cusub sida ila taaka ma kala dhameeyay ka hor ma introduce garan karaan kulli election-ka ay ku soo aadinayaan doorashada oo representative-da qaarkood ay aadayaan aqalka hoose marka waxa warba jiri doona ka dhacayso waa midda anigu waxa u fahmay inay Republican-ka rabaan inay check ka dhigaan because markay inta package kala keenaan doorasho socoto ee dhahan dadka lacag kala siiyo ee Republican-ka diidaan aqalka house-ka dhan la wareega sidii ku dhacday waagi hore labada sanad looga qaatay marka kaas waxa la yiraahdaa jiqbal iskaga dhigay soo kaas waxa u maleynaa wax fiican lagu dari doonaa sansantiisa u jeeda because dad baa rabaa inaa lagu xumeeyo marka insha Allah la soco Fatush family kala soco package-kaas iyo axwaashiisa iyo meesha marayo intaan dib hawada ugu kulmayno waa Fatush ku dhahaysa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh